بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كأني لبعض عشر كهرسان كسر شاقني شنتي ووينيد تيرار كأها أو دوب iyo sida ay muhiim u yihiin iyo halka laga soo qaatay ayaynu kaga hadalay haddana shantii oo faahfaahsan oo aanu diinka ka bilaabayno iyo sidee baa loo xifdin ilaan xifdu diin baani diinta hala ilaaliyo cid alla ciddii muslim ah waxaa waajib ku ah inay diinta islaamka ay ilaaliso tii baan marka ka hadlaynaa ilaahay wuxuu jideeyey subxaanahu wa tacaala waxyaabo badan oo diinta lagu xifdin karo waxaa ka mid a waxyaabaha qodobadan soo socda kow alcamalu diinta in lagu camal falo weeye diinta haddii lagu camal fali waayo lama ilaalinin halkaasi diin ma taalo waxyaabaha lagu haysto dadadkii hore oo sida culimadii reer banu israa'iil iyo qoladii kale ee kanaa'ista iyo nasaarada uu qur'aanka in badan uu dhaleeceeyo diintii ay haysteene dadku u sheegayeen ayay ku socon waayeen ta ugu horrayseen islaamka ku xifdinayno waxaa weeye alcamalu bihi inaan islaamka rag iyo dumar yar iyo weyn caalim iyo nin muxuu ahay aan aqooninba waa inay ku camal falaan taas waa kow ta labaad waxaa weeye aljihaadu min ajlihi islaamka daraaddii in loo jihaado oo muxuu ahaayey isaga daraaddii qofka uu u howlgalo jahdiga jihaadka aada maqlayso waa dhib iyo mashaqo marka diinta jihaadkana waanu arki doonaa noocyaal badan ayuu leeyahay aljihaadu min ajlihi islaamka in loo jihaado sidii hadday axkaamta aanu ku sheegaynay ayaa muxuu ahaayey dadka qaarkoodna hub in la qaado unbay jihaad u yaqaanaane jihaad oo muxuu ahay binaa ummadda la dhiso dhaqaalaheeda iyo horumarkeeda iyo naftoo lala dagaalamo iyo uma yaqaanaan in badanoo dadka ka mida jihaad uma yaqaanaan waxaa ka mida waxyaabaha islaamka lagu ilaalinayo addacwatu ilayhi diinta islaamka si ay u taranto oo weligeed ay u joogto oo la isaga dhaxlo waa in dadka loogu yeedho kan afraad waxaa weeye alxukmu waa in la xukumo waxay diinta islaamka waa inay u soo degto waaqica ama nolosha aynu ku noolahay waa inay inala wadaagto wa raddi kulli maa yukhaalifuhu wax alla wixii diinta ka soo horjeedana waa in laga hortago joog laga joojiyo marka islaamka waxaa weeye xifdu diini fi halaathi macaani diinta la xifdinayana waa saddexdii aynu sheegno alislaamu aliimaanu waalixsaanu marka taa weeye midda la xifdinayo intii aanu soo sheegnay shantii qodob yaan haddana yaan muxuu ahay faahfaahinaynaa alcamalu bihi diintan ha lagu camal falo marka aan leenahay diinkan ilaahay baa jideeyey umana una jidaynin ilaa in lagu camal falo ma ogiya in muxuu ahay la iska dhegaysto ama loo abtirsado oo aniga muslim baan ahaayo aabbahay iyo awowgeyna muslim bay ahaan jireen keliya lama rabo ma xuma yacni inuu qofku anigu muslim baan ahay ku faano aabihii iyo awowgiina muslim inay ahaan jireen taas waa abtirkii oo islaamku xaqo oo nebi yuusufba uu ku abtirsaday oo watabactu millata aabaa'iya ibraahiima oo isxaaqa wa yacquuba maa kaana lanaa an nushrika uu yiri weeye oo waa nasab wanaagsan laakiin haddii adoon camal haynin baan annagu ka hadlaynaa waxaa weeye ilaa liyucmala bihi in lagu camal falo mabda' kasto oo mabaadi'da adduunka xataa kuwa aan islaamka ahaynee baatilka ah haddii aan cidda raacsan ayna ku camalfalin raad ka tegi mahayo waa in lagu camalfalo oo nolosheena fii waaqic alxayaa baa layidhaha nolosha oo dhacdooyinka nolosha waa inuu islaamku hagayo oo muxuu ahay uu la shaqaynayo waxaa la su'aalay sayida caaisha radia allahu canhaa nabiga dabeecadiisa iyo dhaqankiisa
habdhaqankiisaa la su-aalay waxay ku jawaabtay can khuluqi rasuuli lkariim markii la su-aalay qaalat khuluquhu lqur'aan qur'aan lugaha ku socdo camal buu noqday suu isugu dabaqayay marka taas ayaa la doonayaa kaanat khuluquhu lqur'aan fa calaa haada marka sidaa aanu aragno yaa wuxuu ahaanayaa xifdu diin waajib calaa kulli insaan qof kasta oo muslim ah inuu islaamka oo mukallaf ah rag iyo dumar inuu islaamka uu xifdiyo sidaa daraaddeed muslimka waxaa ku waajibaya salaada inuu tukado meel aan salaad qof muslima salaad tukanaynin islaam kuma haya halkaas zakada haddii maal aad leedahay zaka gaadho waa inaad ka bixiso soomka waa inaad soonto xajka waa inaad xajido waxaa la mida taas wax alla wixii manduub sunno ah oo tatawuco ilaahay loogu dhowaana inaad ku dadaasho ama ha ahaado xaggii salaadii ama xaggii soonkii ama xaggii xajkii iyo cumradii iyo wixii la mida iyo sadaqadii wax alla wixii aan markaa waajib ahayn laakiin manduuba waa inaad muxuu isna ku dadaasho iyo wa tarki lmakruuhaat wixii aan fiicnayn diinta agteeda in laga tago kaasi waxaa weeye sida islaamka loogu camal falo waa sidaa waxaa ka mida kan labaad qodobka labaad alxukmu bihi islaamka waa in la xukumo xukunkiina waan sheegnay ma aha axkaam iyo xuduud keliya ma aha xugun markaan idhaahno intaan sheegaynay weeye ummadda in la dhiso weeye si ay ummadaha ula ekaato cadowgeeda uu ka heebaysto oo ay muxuu ahay dhaqaalo xoog le iyo muxuu ahay sanaaco xoog le iyo horumar xoog leh iyo askar xoog leh oon lagu soo dhacaynin waa inay saasoo kale ahaato alxukmu bihi markaan leenahay oo muxuu ahaay ay ka fogaanayso xagga dhaqaalaha inay isdulmiso saasoo kale tiina xuduudiina qofkii ay ku waajibto oo la keri waayo iyadana waxaa weeye xukunkii wuu soo gelayaa waxaa looga jeedaa alxukmu bihi saan u sheegnay waa in muxuu ahay islaamka in la xukumo waa daruura oo daruurooyinka ama loo baahan yahay in diinta lagu xukumo waxaa uga horeeya qofka ilaahay uu sulda u dhiibo xaakimka la yidhaahdo oo haddee nabigeena calayhi salaatu wasalaam xaakimkii ugu horreeyey buu ahaa khulafaa uraashidiintii intii ka dambaysay ilaa yowmiddiin qof walba oo muslima oo xugun qabto waxaa waajib ku ah xifdu diini fii nafsihi inuu naftiisa islaamka ku ilaaliyo maxaa yeelay waa inuu muxuu ahaayey waa iimaankaa loo diiday qofkii aan diinta ilaahay ku xukumin suuratu maa-ida dadku waa yaqaanaan waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun iyo daalimuun iyo faasiquun marka qofka xaakimka ah ee ilaahay diintiisa xukumi waayo islaamkii ma una xifdinin falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بو إلهي يري إلى وان دارتي من نقنيان ضد مؤمنين إلى أي أديك حاكم كوسو حكم تمان وحي يغا دحدودا يالو او ديلاد markaad xukuntana aynan muxuu ahay ka caroonin oo ayna ka gilgilanin taa marka waxaa weeye alxukmu bihi weeye waxaa ka mid ah الدعوة إليه إسلامكي وانو محاهي وانو كعمل فلي وانا حكني لكن انت اوغادن يا انت محاهي وبدك دلانيو يا انت وباهانودن inaan gaarsiino waxay ka mid tahay diinta oo la xifdinayo الدعوة إليه diinta in dadka loogu yeeroy waa shaqada loo soo diray ambiyada ilaahay min ladun aadam ilaa nabigeena laga soo gaaro hawl kaloo ilaahay uu u soo diray ma jirto inay dadki rabbigood ku xidhaan koonkan iyo allaha abuuray iyo sida uu yahay iyo sida noloshooda aakhiriyata adduunyada ay ku hagaagi inay u sheegaan ayaa loo soo diray oy diinta u sheegaan ilaahay waxdaaniyadiisa aakhare inay jirto ambiye ilaahay inuu soo diray sidaa ina og waxaa weeyaan waa shaqadii ambiyadii iyo mursaliintii dacwada oo ilaahay dadka loogu yeero waa waxyaabaha ugu waaweyn ee islaamka lagu xifdinayo waa la is-amray kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed ba waxaa la inoogu yeedhay inaan diintan ilaahay fidinno oon gaarsiino in alla intii aan gaarsiin karo
إلهي وحير سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بإلهي هلا إذن كهلوا واجب السنة معها هلا إذن كهلوا يعني كوح أما أمت إذن كمده oo dadka khayrka ugu yeero oo wanaaga faro xumaantana ka reebo kuwaas way liibaaneen taasi waa aayadda nafteedii muxuu ahay suuradda nafteedii wuxuu ku yidhi ilaahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ummadaha kuwa ugu khayr badan baa tihiin oo la soo saaray oo dadka daraaddii loo soo saaray khayrka ama khayriyada maxaan ku helay yacni ma eexbaa ma abtirbaa ma midabba maya waxaasoo dhan ma aha tilmaamahan soo socda haddii nalaga helo waxaa weeye khayrkaas waynu haysanaynaa haddii nalaga waayana dadka kale ilaahay kama xigno ta'muruuna bilmacruufi wixii wanaagsan baad isfartaan wa tanhawna cani ilmunkari munkarkana waxyaabaha xunxunna waad iska celisaan waad iska reebtaan wa tu'minuuna billaahi ilaahayna waad rumaysaan ilaahay waxaa kaloo uu yidhi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana dadka waxaad ugu yeedhaa si dabacsan oo wanaagsan oo xikmadi ay ku jirto ugu yeer dadka jidka ilaahay bilxikmati waalmawcidati alxasana ilaahay nabigeena wuxuu ku yidhi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wixii ilaahay uu kugu soo dejiyey dadka gaarsiin wuxuu ku yidhi qul waxaad tidhaahdaa haadihi sabiilii jidkaygii waa kana adcuu ila allahi calaa basiiratin anoo caalim oo hubo waxa aan dadka ugu yeerayo oon mugdi igaga jirin ayaan dadka u yeerayaa aniga dadkaan u yeedhi buuhi nabiga waman ittabacanii iyo inta aniga i raacday marka inta nabi raacday waa ina dadka diinta ilaahay ugu yeedho oo nabiga oo afhayeenkeenni ah yaa yidhi oo muxuu ahay inaga ballan qaaday inaan u yeedhi doono nabiga yinan ballanta uga bixine ana waman ittabacanii qofkii nebi maxamed raacayow nebi maxamed baa ballan qaaday inaad ilaahay diintiisa dadka ugu yeedhi doonto ana dadkaan ugu yeedhi waman ittabacanii inta aniga i raacdayna dadkay diinta ugu yeedhayaan buuhi marka nabiga ha uga bixin ha ku ballan furin ana waman ittabacanii wa subxaana allahi ilaahay baa nasahano hufan wamaa ana min almushrikiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi balliquu cannii walow aayatan walow aayad keliya haddaad taqaano aayaddaa muxuu ahay gaarsii dadka u qaybi waxaa shardi maaha inaad diinta islaamka iyo tacaaliimteeda aada soo afmeertahay shardi ma ahe intii kolba aad garanayso sidaasoo kale akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi alambiyaa xadiidka imaam bukhaari baa wariyey waxaa ka mid ah oo lagu xifdinayaa diinta qodobadii aan soo sheegnay aljihaadu fii sabiili illah jidka ilaahay oo lagu jihaado waynu arki doonaa min acdami wasaa'ili xifdi ddiin waxyaabaha ugu waaweyn ee diinta waardiyaha laga qaban waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiili illah wadalika liana adacwata ilaa hada addiin laa tuqaabalu bilqabuul min kulli naas diintan islaamka markii dadka loogu yeedho sidii nabigeennaba looga hor yimid in badan baa ka hor iman doonta marka kuwaasi waa in lala jihaado kulla naas lah marka waa in la jihaado oo maxaa diintaasi ay u fido iyada oo jihaadka maxaa laga rabaa marka waxaa weeye ximaayatan liddiin diinta waa la ilaalinayaa wa inqaadan lilmustadcafiin iyo dadka muxuu ahay lagu taagan yahay oo diintooda daraaddood loo dhibi oo lagu istaagayo inaad badbaadiso marka maxaad u malayn intii mustadcafiinta iyo masaakiintii oo in la badbaadiyo uu jihaadka iyo diinta ay u timid haddaad mustadcafiintii nafteedii ku jihaadi oo muxua naftii aad ka goynayso habeen iyo dharaar oo aad leedahay waaba jihaadkan soo wax lala yaab ma ah jihaadka waxaa loo jiray dadka tabarta daran in lagu badbaadiyo markaad dadkii tabarta darnaa dhinacna aad ka dili dhinacna muxuu ahay biyihii iyo baadkii aad u diidayso ood leedahay waa jihaad bal ka waran taana waxaa weye waa wax lala yaabo marka sidaa daraaddeed waxaa weye wa inqaadan lilmustadcafiin yaa la badbaadinaya ilaahay wuxuu yidhi
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. آيات فيري يعني أمد إسلام يا حتى ضدك عدو إلهي للجهاد مركي جهاديان ما هو وحي جهاد إسلام كلينا يدافعيان مقدساتك حتى دينها كالإليين أو وطن كاي كيالو ويدفاعيان سيئا لو بربورين معالي وان أقنا هذا مركو إلحاد يشوع مركو يمد وحيو كلا ساريبا مالك كنيسة إيو محاي ماشي يهودا يكون عابدانو أو بيعا أو أي نشاقنا إيو مساجد مسلمين إيو كل عكتا لو ذمري مركا فيري سلو دينتين إسلامك يدينها كلابا لو دافعو أيا سيفتا للبحيا مركا إلهي وحول هدان دادك قاركود بقارك كاللغوهر جينين له الدمد وحال بربورين لها صوامع صومع وميرها نمانك النصارى أي كو عبادستان إيو وبيع إيو هاي إيو مساجد اليهودا إيو وصلوات مركا صلوات كان أدو لبدا قرؤ بامد لك الراعية إيو مساجد مسلمين تاي الهايين ويذكر فيها اسم الله إلهي مقعسنا لو حصو إلهي عدي أقرقارتو أي أقرقاريا الله وحول سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم مركا أديار قروبة نمك داد كاسي سيدا آد محو هاي آد أقهر تقل هايدين أو آد محو هاي وقد دافع هايدين دينتا وإن أود إليه أو كلا ديالته مركا عدا إسلام كهلا دافعاني لي الإسلامية محي حقي جوكتا هذا ما أنت محي دافع كرتوان أن هلكا مريسو يجي محي إسعونيو يجي بان هرو كعلى هاي يجي بان واحد مودا إن محو هاي أي كله يهين قرونتي لقسو تجي